Waxaa jira ilmo yar, maalintii 100 jeer buu dhacaa, haddana wuu kacaa. Waxaa jira ilmo yar oo rabay inuu barto sida loo wado baaskiilka. Markuu siraa kor, wuu ka dhacaa, haddana intuu boodhka iska tumo ayuu kacaa oo barashadiisii hore u sii wata. Waxaa jiray ilmo yar, ma yaqaano waad madowdahay, ma yaqaano waad caddahay, ma yaqaano diin, ma yaqaano waddan, ma yaqaano qabiil, ma yaqaano quusasho, ma yaqaano xan, ma yaqaano xaasidnimo, ma yaqaano isyasitaan, ma yaqaano cabsi, ma yaqaano isdhiibitaan. Keliya wuxuu yaqaanaa siduu ula ciyaari lahaa carruurta yar ee qeyrkiisa. Waxaa jiray ilmo yar oo riyooyin waaweyn oo aan la soo koobi karin leh. Ilmaha yari wuxuu sameeyaa wax waliba siduu riyooyinkiisa u gaaro. Ilmaha yar ee aan ka soo sheekaynay waa adiga. Ilmo kasta wuu weynaanayaa, waxaanu bilaabayaa cabasho, waxaanu bilaabayaa cabsi iyo inuu dadka ku eedeeyo dhibkiisa. Dadku waxay ku dhahayaan waxaad tahay saaqid, dadku waxay ku dhahayaan waxaad tahay doqon, dadku waxay ku dhahayaan waxba ma qabsan kartid, dadku waxay ku dhahayaan waxaas ha ku fikirin, dadku waxay ku dhahayaan waxaasi ma dhici karto. Dadku waxay isku dayayaan noloshaada inay falanqeeyaan. Adna waxaad bilaabaysaa inaad dib isku dhigto, adna waxaad bilaabaysaa inaad dadka aaminto, adna waxaad bilaabaysaa inaad isyasto, adna waxaad bilaabaysaa inaad su'aal isweydiiso, adna waxaad bilaabaysaa inaad hurdada ka kicin, adna waxaad bilaabaysaa inaad isdhiibto. Dadkuna waxay ku dhahayaan waxaad tahay nooc kale, adna waxaad isku dayaysaa inaad aaminto waxay ku leeyihiin, waayo waxaad arkaysaa dad midab kale leh, waxaad arkaysaa wadamo kala duwan iyo diimo kala duwan. Kadib adna waxaad bilaabaysaa inaad xaqiijiso inay dadku kala duwan yihiin. Kadib waxaad isku dayaysaa inaad dadka ka fogaato oo aad iska fogayso. Kadib dadka qaar waxay isku dayayaan inay riyooyinkaaga ka hadlaan, laga yaabaa inay ku qoslaan saaxiibadaada qaar, iyadoo ay yasitaan ka tahay inay kugu qoslaan. Laga yaabaa inay ku dhahaan riyadaadu maaha mid suurtagelaysa, waayo waxaad tahay Afrikaan, waayo waxaad ku nooshahay Soomaaliya, waayo waxaad ku nooshahay qurbaha oo aan ahayn waddankaagii, waayo maad helin waxbarasho kugu filan. Laga yaabaa inay kuu sababeeyaan waxyaabo aan riyadaada ka hor istaagi karin, aadna aad rumaysato oo tidhaahdo waa runtood, tan ma samayn karo, tani ima suurtagelayso, waayo waxaan ahay sidan. Kadib habeen walba waad seexanaysaa, waxaanad ku riyoonaysaa riyadaadii iyadoo bilaa ficila. Xaggay ka ahaan lahayd inaad dhaqdhaqaaq samayso ood wax qabsato ood u kacdo riyadaada. Waa inaad xasuusataa markaad yarayd eed rabtay inaad socodka bilowdo, imse jeer baad dhacday oo haddana aad kacday ood haddana hore u socotay. Waa inaad xasuusataa markaad baranaysay baaskiilka, imse jeer baad ka dhacday oo haddana intaad boodhka iska tuntay ood hore u sii waday. Waa inaad xasuusataa imse jeer intaad wasakh iyo boodh ku dhacday, haddana intaad ka kacday ood qosashay aad hore uga socotay. Waa inaad xasuusataa markaad yarayd inaad lahayd riyooyin waaweyn sida inaad baylood noqoto, inaad dhakhtar noqoto, inaad wariye noqoto, ama inaad madaxweyne noqoto. Ogow libaaxu meel kastoo joogo inuu libaax yahay, adiguna u noolow sida libaaxa. Intaasaan kusoo gabagabeynayaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Maca salaama.